عثمان بن عفان الله الرالي كان نقضي الضوميه سي أدون كميدو وياري مالين وعود العقد انقاد أبو ذر الغفاري وقي هدو العقد أبو ذر هدو العقد كاقاتنا حربات هاي بكير حر وانكو حري أبو ذر مركا مقالة مدينة دبددو دقنا ريب دم الليلة وعثمان بن عفان باكود هلكا أقول رضيقو وأيوانين زاهد أبوها قرني نبي قد موداينو جوغي يسوقو دات كان تابعين تا الدين تقصو قدال دم بكي مدى الدوية دي اللي مادين ودنا ونفين يسوقو دركي نبي محمد وكقد انتبه ستاولي عريش نبي محمد وكو أغانا وقلا عنتدي عهدي نبي قو نبي قال لعنا ولي وعنا يسوقو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo salaam ahinde mani baa lacag diidaya haska jecelahay oo yimiday oo salaamay wuxuu amirkii muuminiinta Uthman baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dar u geel lacagtaas markaasuu maxaan ka dhigaa wuxuu de haw kaalmeystay adduunyadiisa markaasuu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa iga daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ihay cid kale wax ima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo ma aha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxe i xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu origa qaado oo ina xariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dar dhegayso hadalku ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas yaabay ninkii lacagta isagoo wada Cusmaan u keenay wuxuu waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyada maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tageen bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan Usmaan bin Affan Allah raalli ka noqdee nin baa nabigu yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u tagay buu ka yidhi markaa buu yimid Usmaan bin Affan wuxuu arkay Usmaano
khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cismaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nabiga ii ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nabigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhire midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin